wafdi ka socda hogaanka sare ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa soo gaaray faraca jaamacadda ummadda ay ku leedahay dowlad goboleedka Galmudug ee Caabudwaaq waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maamulka degmada maamulka iyo barayaasha jaamacadda ardada waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedada socdaalka wafdigan ay ku soo gaareen xarunta jaamacadda ummadda faraceeda Galmudug ayaa ahayd furitaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 iyo qabashada araajida ardada iyadoo lagu soo kordhiyay jaamacadda kuliyadihii hore uga bixi jiray kuwa cusub Muuse Maxamed Axmed Muuse Inji oo ah madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada iyo agaasimaha jaamacadda ummadda faraceeda Galmudug mudane Maxamed Cali Dirir ayaa ku soo dhaweeyay wafdigan xarunta jaamacadda كمامولهان أنه كفر حسن اسمها يتبجلينتا يكمل نقاشة جامعة ومدة إن نقولنا فرع هذا قلمدو أنه كفر حسن أنا أقول الله يا مجا مامول كدجمة إن وحنو كأجمع مهد علينا أما إذا كأجمع مهد علينا دمان أنتي جامعة تنابورتي هذا أنها الشعب كقلمدو أكثر كجامعة ومدة الصومالية بروفيسور محمد أحمد جمعالة ركتر كحجين كجامعة ومدة الصوماليات بروفيسور آذن قوليت شبال مدن يال سود هذا حرنتي نكلة جامعة ومدة الصوماليات فرع هذا قلمدق عابدواق عبد محمد جامع عبد وايل oo kamid ah asaasiyaashii dhismaha jaamacadda ummadda oo ka hadlay munaasabada lagu soo dhaweynayo wafdigan ayaa xusay in bulshada Caabudwaaq ay door ku lahaayeen iyagoo ka hashanaya qurba joog hirgelinta dhismaha jaamacadda ummadda faraceeda Galmudug waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto dhalinyarada iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo maamulka jaamacadda iyo maamulka degmada oo bilowgii jaamacadda tan iyo asaasideedii dadku u istaagay oo juhdiga ku baxshay oo dhaqaalaha ku baxshay waan rabaa munaasabada uga faa'iideysto inaan ugu mahad celiyo Professor Aadan Guulad Shabeel oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda iyo Professor Maxamed Axmed Jimcaale oo ah hogaanka sare ee jaamacadda ummadda oo wadajir oo la hadlay barayaasha iyo ardada jaamacadda ayaa ugu baaqay inay ka faa'iideystaan aqoonta ay bixinayso jaamacadda ummadda waxayna yimid jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed waa jaamacadda kaliya oo sharci ku dhisan inaanu muujino ku dhawaaqno in jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed sanad dugsiyeedka 2018-19 in arday loo qaadanayo ujeedada ugu weyn arrinta ayaa hayday marka waxaan rabaa inaan ugu yeerno dhammaan ardayda gobolada ku dhow mudug iyo galmudug in ay halka kan u soo qortaan araajo u soo qortaan kulliyadaha jaamacadda waxaa kaloo ayadana aan rabnaa inaan sanadkan ku hadda jiro ku korino kulliyadda xanaanada xoolaha waxaan ka codsanaynaa ardayda reer Caabudwaaq iyo degmooyin ku dhow iyo reer Galmudug Hiiraan intaba ardadu in ay halkan imaan karaan imtixaanka ku geli karaan jaamacadda ummadana ay ka noqon karaan arday Cabdikariin Axmed Burhan raadiyaha iyo TV-ga qaranka Caabudwaaq